السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يوالكن مهدي ميعاد horta dhalinyarteena Soomaaliyeed waxa markii qaarkood la isweydiyaa waxay tahay waxa jira term ama kelmad affiliate marketing oo affiliate marketing maxay ka dhigan tahay marka warsi waa su'aal affiliate marketing Soomaalidu lacag ma ka sameyn kartaa waa mid ama dadku lacag ma ka sameeyaan waa mid takala saddexaad waxa weeyaan Soomaali ahaan ama reer Djibouti affiliate marketing ma laga sameyn karayaa haddaba kelmadda horta affiliate marketing horta aan ku jilciyo ama aan ku macneeyo affiliate marketing waxay ka dhigan tahay waa alaab adigu aad lahayn oo iibinaysid yani adiga ayaa ka nooc min dilaal oo kale ama waxaad u dhaxaysaa yani adigu waxaad keenaysaa qofkii iibsanayay waxaanad u geynaysaa qofkii alaabta hayay laakiin waxa soo dhan waxay ay u dhacayaan wax weyn waa iyadoo online inaad garanaysiin kale mooyaane markaad suuqa tagtid ma markii qaarkood eed rabtid inaad wax iibsatid waxa dhici karta ninkan aad u tagtay inuu alaabta hay haddaba alaabta markuuna hayn ama way ka dhamaatay ama mar hore u hayn jiray waadu imano waxaad ku oran warwaal kabaha caynkaas maad haysta ama shamiiska caynkaas maad haysta ama surwaalka caynkaas maad haysta haddii uu hayo ka ibin haduuna hayna wuxuu koonaa yarasug ha waan hayay mid kale uu kaaga soo qaadi marka mid kale markuu kaaga soo qaado kullay lacagtan aad siinaysid wuxuu isagu dul dhiganayaa lacag yar buu dul dhiganayaa suu qofka kale markuu ugu celiyo ay lacagtiisi u dul taalo haddaba sidaas oo kale cilmiga iyo iibsiga caynkaas ee dilaalka iyada oo online ayaa jirta dadku maxay sameeyaan nin baad arkaysaa YouTube buu soo fariisan alaab buu iyo macnayn alaab markuu macnayo telefoon buu macnayn kamarad buu macnayn laptop buu macnayn kadib linkigi laptopka ayuu halka YouTube ka hoos ku dhigay ama linki kamarada ayuu halka hoos ku dhigay linkiga markaad aad click samaysid ee darabtid inaad ka iibsatid meeshan uu kugu macnaynayo ee lagu iibiyo ama Amazon ha aato ama website kale ha aato ama Alibaba aato meesha doonto ba aatee isagu wuxuu soo register gareeyay website ka kale inuu dilaal oo kale u yahay hatta YouTube ku bariyo hore sida umuusi eegi jirin qofku inuu video YouTube kaga hadlo alaab isagoo lacag ka daba helaya imika YouTube ku xidadka wuxuu ku qasbay xitaa war product aad ka hadlaysid haddii aad lacag ka raadinaysid halka hoos ku soo qoraya include paid promotion waxaan ka siiyay oo ka dhigan videoga waxa ku dhex jira alaab aan dilaalka ahay haddaba dhalinyarteena Soomaalida wixii sax ana waana sheegnaa wixii khaladana waana sheegnaa wax kasto adduunka laga hadlo oo la yiraahdo lacag baa laga sameeynaya Afrikada ama dadkeena Soomaaliyeed kama sameyn karno dibtuna waxay tahay waxa weeyaan Visa card iyo Master card kan aan haysanay waa limited sida dadka qaarkood open ma aha yani waxaan uga jeedaa waxa weeyaan Visa card dadka Yurubta joogay Visa card iyo Master card wuxuu ku xiran yahay account bankooga ayuu ku xiran yahay marka waxna waad ku iibin kartaa waxna waad ku iibsan kartaa laakiin badana Visa cardka imaka anaga Djibouti badana Visa card iyo Master cardka jira waxa weeyaan waa kaad wax ku iibsatid kaad adigu ku iibinaysid ma aha dadku inta u badanna way isku dayaan baanankan waaweyn ee xataa Soomaalida xitaa baananka Soomaalida ugu waaweyn xataa Djibouti way jiraan oo iyaga saas leeg way isku dayaan inay waxyaabooyinka kale la hagaajiyaan laakiin inta ay jirto wax weeyaan ma sameyn karaysid affiliate marketing Soomaali hadda aad oo dhageysanaysid oo isticmaalaysid Visa card iyo Master card wadamo Yurub iyo wadamo Afrikaan iyo waxaan jeedaa Yurub iyo Mareykan wad sameyn kartaa laakiin Soomaali hadda tahay oo Djibouti iyo Soomaaliya dhulka aad joogtid wax aad iyo aad bay kuugu adkaanaysaa dadka anigu waxaan walaalahayo aan dhalinyarta aan ku booriyaa waxa weeyaan war waxyaabooyinka yar ee lacagta yar ee bilaa macniga laga sameeynaya hadaba caymadina maanta mid baa ku oranaya affiliate marketing lacag baa laga sameeyay
YouTube kan ida lacag baa laga sameeyaa war YouTube kan lacag laga ma sameeyo lacagta laga sameeyaa waa lacag aan waxba ahayn ama waa lacag been ama waa lacag la oran karayo ma aha waa lacag misha markaad million subscriber markaa gaadid la hadda waan ka hadli doonaa laakiin inta Soomaalida kale oo mira waxa weeyaan wax kooga ugu badan waa $1 iyo $200 iyo inta ay wala helayaan qofkii inta ka badan I don't know laakiin waxyaabooyinkan xitaa aad kalisid waxa qofku anigu aan kula talinayaa Soomaalida dhalinyarta waxa weeyaan war shaqooyin baa jirta online war wixii shaqooyinkii online ka raadsada inta wax la isku haysto oo ma laga sameeyaa lacag mise lacag lama sameeyo su'aalaha ugu fara badan YouTube ka lacag ma laga sameeyo digital marketing lacag ma sameeyo mid iyo laba intuu ka sameeyay inta hadaba ay midid shaqo caadi ah samee shaqada caadiga waxaan xirfad baro xirfadda marka aad baritid online baad ku shaqeyn website developer baan hayde graphic designer baan hayde digital marketing dadka aan Facebook ugu xayeysaade waxyaabooyin shaqo rasmi ah baro habarin wax yar oo inta laga helaana shaki ku jiro qaarna ka sameeyaan qaarna ka sameeyeen su'aalo la isku weydiin may imaka hadii aad xirfad baratid oo imaka shirkad website ugu sameeysid dibti visa iyo mastercard wali ku hortaaganta laakiin xirfadaadu hadii xirfad wanaagsan haday tahay qaab kale jiro bank transfer baa jira xawaalad bankeed baa jira xawaaladaha waxa jira xawaadii kale ee international la garanayay gaaladu xitaa kugu soo diri kartaa jirta marka haraadin wax point d'interrogation dul yaalaan waxyaabooyin calaamad su'aal dul taalo oo ma laga helaa iyo ma laga helo iyo maxay caynkaas iyo mahdiyo misaa YouTube ka laga helaa iyo halkan baa lacag laga sameeyaa iyo caynkaas lacag u baad ka hadliyo oo qof kasta wuxuu rabaa sarifka lacagta dadka lagu wareeriyay ee culimo qaar kood waa xaraan leed waa xalaal leed la isku haysto war wax la isku haysto xalaasheeda xaraanteeda iskaga batay qofka mu'minki ma ahaba inuu dul joogo wax la isku haysto oo leeyahay ma xaraan baa mise waa xalaal intii aad leedahay waa shaqada gal website ka anigu xitaa waxaan kaga hadlaa badana xitaa YouTube waxaan ka hadlaa graphic design ka baro website development ka baro anigu waliba marka qaar kood waan ku tilmaamaya hadaan full video hadaan ku siinayna waxa weeyaan in ayaan fartii baan kugu fiiqan kule war waa kaas baro ka kale waa ka samee waxbana ka mar waalka iyo waa macluumaad aan dar ilaahay u bixinay inta raadi oo dabagal oo adigu waqtigaaga wax ka bixi waqtiga markasta oo wax bixisay faa'iidada helaysa markasto investment in yourself aad adigu is maal gelisid dibaad maxay faa'iidada wad heli in waqti kasta oo adiga ka dhaca ama meel kale kaaga dhacana waa wax adiga ka maqan cidna ka maqan adigu ka maqan marka intii aad dadaali karto waalkoo dadaal aniguna waxaan isku day wixii kasta aan isla Soomaalida u wanaagsan yahay bal aniguna waxaan isku day intaan macluumaad aan soo tabin karo wixii su'aalo inaad qabtaan hoos waad igu reebi kartaan aad iyo aad baan salaamayaa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh